لاعبka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Arjen Robben ayaana markaa xusay inuu diyaar u yahay ka dhaqaaqista Bundesliga wadankaasi Germany maadaama si gaar ah ciiraankani ay u xiiseynayaan kooxaha ay ka mid yihiin Inter Milan iyo PSV Eindhoven. Arjen Robben ayaa muddo 10 sanadood kadib qorsheynaya inuu macsalaamayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo ku biiray sanadii 2009 xilligaasi uu ka soo ambabaxay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Arjen ayaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu ku biiray 28 Agoosto ee sanadii 2009 heshiiska kooxdaasina waxa uu ka dhici doonaa bishii lixaad ee sanadkan ku guda jirno 2019. kooxaha sida gaarka u baadigoobaya xidigan u dhashay wadankaasi Holland Arjen Robben waa Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven oo labada kooxoodba diyaar u ah in ciidankaasi la wareegaan markuu ka soo dhaqaaqo garoonka Allianz ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Arjen Robben ayaa sidoo kale waxa uu waakiyay xilciyaareedkii inuu ka soo gudbay dalab ka soo gaaray horyaalka wadankaasi China oo mushaaraad u fara badan lagu ballan qaaday in laga siin doono haddii ciidanku aqbalo inuu dhaqaaqo horyaalkaasi. waxaana Arjen Robben uu sheegay inta laga gaariyo bisha June inuu ka fikiro doono mustaqbalkiisa 34 jirkan ay waxa u muuqan doontaa in midkood uu cadhigan karo kooxaha PSV iyo Inter Milan. ciidanka kooxda kubadda cagta West Ham United ee Andy Carroll ayaa qorsheynaya inuu baaqi ku sii noqdo kooxdiisa xilli laacibkan heshiiska kooxdaasi uu kula joogo uu kaga egyahay xil ciyaareedkani. لاعبكاني ayaana markaa dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray kooxda kubadda cagta West Ham United waxaana uu danaynayaa in heshiis kordhin uu sameeyo kooxdiisa maadaama dhinaca canqowga uu dhaawac xoogan uu ka soo gaaray ciiraankani. dib ayuu waqtiga kan xaadirka ugu soo laabtay kooxdiisa kubadda cagta ee West Ham United. wali maamulka kooxda kubadda cagta West Ham United ay xusayaan inaysan wali kalsooni xoogan ku qabin xidigani Andy Carroll ayaana markaa la rajeynayaa in heshiis 2 sanadood afka loo gelin doono maadaama laacibku uu sheegay inuu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta West Ham United xilli kooxdaasi ay dalbanayso dhowr ciyaartoy. Andy Carroll ayaa kooxda kubadda cagta West Ham United waxa uu ku soo biiray 1 July ee sanadkii 2013 heshiiska kooxda uu kula jooganaya waxa uu kaga egyaa oo kaliya bishii lixaad ee sanadkan ku guda jirno 2019. laacibkani Andy Carroll ayaa waxa uu ka soo dhex muuqday kulankii FA-ga ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United natiijo xooggan ka gaartay kooxda ee Birmingham City. tababaraha kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa kalsooni weyn ku qabay in bishan ay la soo wareegi doonaan ciidanka u dhashay wadankaasi Brazil ee Gabriel Barbosa. لاعبكani ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa la sheegay inuu ka mid yahay bartilmaameedka qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. waxaana West Ham United ay ku guuldareysatay inay gacanta ku soo dhigaan xidigii bartilmaameedku ahaa kooxda kubadda cagta Arsenal ee Dani Suarez oo West Ham United ay u soo bandhigtay dulacyeed gaaraya 20 milyan oo lacagta banka u dhiganta 25 milyan oo lacagta dollarka. laakiin Barcelona ayaa maalin ka hor waxay sheegtay in aysan iibin doonin xidigooda Dani Suarez oo toddobaadkii ugu dambeeyay xusayay inuusan ku qanacsanayn kursiga keedka kooxda kubadda cagta Barcelona 25 jirkaasi. kooxda kubadda cagta West Ham United waxay doonaysaa in dalabkeeda ku xoojiyaan wiilka reer Brazil ee Gabriel Barbosa oo si gaar ah u xiiseynaya inuu u soo dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhawaaq la yaab leh ka soo yeeray kadib markii ay xuseen inay diyaar u yihiin inay gacanta ku soo dhigaan xidiga Philippe Coutinho ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Barcelona. laacibka hore kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa xilligan waxa si gaar ah u xiiseynaya kooxaha Chelsea iyo Manchester United. warbaahinada qaar ayaa xusaya hadalhaynta ugu weyn in maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester United ay ka go'an tahay in ciidankaasi reer Brazil ee Philippe Coutinho dib ugu soo celiyaan horyaalka Premier League. Manchester United qorshaha ugu weyn ee ka damacsan tahay xidigan Philippe Coutinho ayaa ah in wiilka Real Alexis Sanchez uu noqon karo bedelka u qalma maadaama Alexis Sanchez uu diyaar u yahay ka dhaqaaqista Stadia Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United. waxaana la xusayaa in Philippe Coutinho in qiimihiisa uu gaari karo in ka badan 100 milyan oo lacagta banka ah. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kalsooni weyn ku qabta in Philippe Coutinho ay markaa dib ugu soo celin doonaan horyaalka Ingiriiska ayagoo ka faa'iideysanaya maadaama laacibkani Philippe Coutinho ilaa iyo hadda uu ku jahwareersan yahay la qabsiga kooxda kubadda cagta Barcelona. Alexis Sanchez ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa uu sheegay inuu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Manchester United taa oo ay fursad u arkeen maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United. maalmo ka hor ayayna kooxda kubadda cagta ee Manchester United go'aan ay ka gaareen qaabkii dib loogu soo celin lahaa Premier League xidigii hore kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho. sidoo kale Chelsea ayaa u arkaysa dooqa ugu horeeya ee bedelka mustaqbaleed ee Eden Hazard oo markaa ku wajahan inuu ku biiro mustaqbalka kooxda kubadda cagta Real Madrid. waxaana u arkayaan in Philippe Coutinho inuu yahay dooqa ugu muhiimsan ee imaan karo gigida Stamford Bridge markii Eden Hazard uu macsalaamayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea.
soo kala laacibkani waxa aad u xiiseynaysa kooxda kubadda cagta Manchester City waana hadalhayntii ugu weyneed maadaama Philippe Coutinho waqtiga kan xaadirka ay xiiseynayaan kooxo waaweyn ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska iyo Faransiiska sida Manchester United, Chelsea, Manchester City iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. koox walbana waxa ay rajo ka leedahay inay helaan saxiixa xidigaasi ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona Philippe Coutinho. Philippe Coutinho ayaa ku dhibaatoonaya Barcelona waxaana haatan bartaameeda u ah labada kooxood ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kooxda ka dhisan horyaalka waddanka Talyaaniga ee Bianconeri Juventus ayaa dhinaca kale waxa ay xustay inay xilligan Manchester City ay heli karto xidiga reer Argentine ee Paulo Dybala waxaana kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay qorsheeyeen in ka badan 90 milyan oo lacagta banka haddii ciyaaryahankaasi dalab ku aadan ay helaan inay ka fasaxi doonaan horyaalka waddankaasi Talyaaniga. maamulka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaa hore u diiday dalabyo ka soo gaaray kooxaha Manchester City, Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain oo si wadajir ah u xuseen inay diyaar u yihiin xidigaasi Paulo Dybala inay kula wareegaan adduun lacageed gaaraya 90 milyan oo lacagta banka ah. waqtiga kan xaadirka Juventus waxay qorsheynaysaa 25 jirkaasi reer Argentine Paulo Dybala inuu ka dhaqaaqi karo Juventus haddii ay ku helayaan in ka badan 90 milyan oo lacagta banka ah. tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa kalsooni weyn ku qaba in arintani xil ciyaareedkani ay xoojin doonaan si xidigaasi reer Argentine Paulo Dybala oo marka uu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City. ugu dambeyntiina tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Mauricio Sarri ayaa kalsooni weyn ku qaba in bishaan ay la soo wareegi doonto kooxda Chelsea sida Gonzalo Higuain iyo Nicola Barella. labadan ciyaartoy ayaa waxay u arkeen in ay wax weyn ka bedeli doonaan qaybta weerarka kooxda kubadda cagta ee Chelsea. xilli dhawaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay gacanta ku soo dhigeen wiilka reer Mareykan ee Christian Pulisic ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Mauricio Sarri ayaana markaa xusay in labadan ciyaartoy ee Gonzalo Higuain iyo Barella ay noqon doonaan kuwa xaqabtiri doona qaybta gool dhalinta maadaama warbaahinada waddankaasi Talyaaniga qaarkoodba ay xusayaan in Nicola Barella ay qarku saarantahay kooxda kubadda cagta ee Napoli oo doonaysa ku dhawaada inta u dhaxaysa 45 milyan ilaa 50 milyan ayana ciyaaraankaasi kooxda kubadda cagta Napoli doonaysa inay kula wareegto.